Nunes uu fiican yahay Haaland wax walba ka rajay 40 goals ilaa 35 goals and Premier League ana cid qaadi doonto waxay u dhaxaysaa hadda marka ani ahaantayda waxay u dhaxaysaa City iyo Liverpool laga yaabo Arsenal inay tartanto laakiin labada ayaa hadda xoog badan dhanka kale isaguna Gabriel Jesus ayaa laga yaabaa inuu top scorer Arsenal uu noqdo season kan Jamie Vardy ayaa joogo Harry Kane Golden Boot inuu ku guuleysto ayaa laga yaabaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري كسر هذا مركلة يه فيديو عصب تياري هدي أدي لسعتي هذا يدو ما تنتهي هدي أدي عصب تاينا فضلا سبسكرايب إيصار فيديو غنا شير جري أو لايك تو وجود ذلك سو جارو أصحاب تعيارها جعل أخياري سيدا أكتهم بوي جنو حيارة مجرو بريمير ليج إلى يو ساتردي ذا بريمير ليج مجرو ما أنتنا وحن كهال دونا بريمير ليج وحيابا كسابسن حيابها سو حكمي ذا كو يا ريليجيشن أدي دونا يا نقون دونا مدة yaa ku dhameysan doono meeqa koox ayaa ku dhameysan doonto top 4 afarta team ugu horeyso ee Champions League galaysa waayo tan saddexaad yaa qaadi doono Premier League season kan 2022-2023 ga mid afraad yaa ku guuleysan doono Golden Boot inta ayaan fiirinaynaa maanta waana prediction gareyn doonaa waxyaabaha idinka aad ka qabtaana commentiga ayaad nagula wadaagaysaan Let's go. Okay akhiyaari aan ku bilaawna saddexda ugu horeysa ee relegation aadi doonto oo Premier League ka noqon doonto marka idin tuso saadaalinteeda waxa idin tusi doonaa saadaalimaha kale ee fanska guud ahaan ay sameeyeen oo social media la soo dhigay marka aniga sidan u maleynayo iyo sida ay dad kale u maleynayaan almost waa isku mid Bournemouth ayaan u maleynayaa inay noqon doonto iyo Fulham iyo Nottingham Forest sidan ognahayba saddexdooda Premier League season ay dheelayaan hadda ayana ka soo bixin division kooda marka saddexdaas ay u maleynayaan waxa laga yaabaa Southampton oo iyaduna Premier League sidii ku bilaabatay si qaab daraneed oo ilaa hadana saxiix fiican aanan sameynin inay noqoto sida ogtihiin bay Leeds way diyaarsan tahay oo aad ay isku dhistay tripkan iyaduna inkastoo hadii aan ka rajeynaynin inay soo gasho meelaha top 10 iyo meelaha laakiin inay joogeysay u badan tahay tripkan way diyaarsan tahay waxa ogtiin waxay iibiyeen Rafinha 55 milyan ay ku iibiyeen ciyaaryahanna kale ay keensadeen marka way tartamayaan Brentford sidoo kale iyaguna waxay haystaan coach aad u fiican tactic fiican deelo marka saddexdan u maleynaya inay laaban doonaan waa saddexdan sida ay predict gareeyaan fanska guud ahaan caalamkana waa sidan ay predict gareeyaan sida aragtaan waa saddexdii aan lahaa way noqonayaan ayaa noqonayo halka almost kulligeen waa isku daraacnay ayaan u maleynayaa hadii aad fikrad gooni aad ka qabtana qaybta commentiga wala wadaag sidoo kale arinta labaad ee waxay tahay yaa soo gali doona top 4 yaa imaan doono sida ogtihiin ba lixda team ee Premier League oo waaweyn dhamaantood waa wada tartamayaan waxaana ka ahayn Manchester United ilaa hadda suuqa u furan yahay iyadoo Chelsea waxa laga yaabaa inay dib iska soo dhisaan ciyaaryahanna kale ay keensadaan hadii aan ku bilaawno Liverpool waa ogtiin changes ay sameeyeen number 9 khatar oo wali ay keensadeen back four gadaal waa ka dhisan yihiin midfield sidoo kale Elliot ayaa u soo kacay hadda oo daradan arkay markay Fulham ay ku heysay gadaal laga keenay marka sidoo kale iyaduna Man City iyaduna waa kacsantahay Erling Haaland ay keensadeen maarteen waa diyaarsan yihiin Arsenal sidoo kale Gabriel Jesus Zinchenko ay keensadeen iyaguna waa diyaarsan yihiin coachkooda oo laga yaabo dadka inay ku xamanayaan inuu experience u leeyahay oo khibrad ku filan u salahayn marka iyaguna laakiin waa diyaarsan yihiin oo way tartamayaan sida la saadaalinayo Tottenham iyadana sidoo kale Conte ay haystaan waa ogtiin season ka hadda asaad u imaaday horey ayuu Champions League ciyaaraheeda uga daray Tottenham waxyaabo badan oo ka bedelay ciyaaryahanna fara badan oo khatar ah u saxiixay ilaa haddana wali suuq ay ku jiraan oo ragga Arsenal ay la tartamayaan marka Newcastle ayaa iyadana ogtihiin oo xoogan oo iyadana isdiyaarisay oo dadka indhaha faraha ka gelinayso maartay team fara badan ayaa season ka diyaarsan hase ahaatee afartan u maleynayay inay Champions League sanadka dambe ka soo qayb gali doonaan ayaa waxay yihiin Liverpool 2 Man City number 3 aan leeyahay Arsenal ay soo galayso number 4 Chelsea ay soo galayso ayaan leeyahay marka sidaas ayaan wax u predict gareeyay waana sidii aan ila tahay sida ayaan wax u saadaalinayaa waayo afartooda ayaa hadda ila xoog badan Tottenham ayaa la is oran karaa iyaduna maxaa meesha uga saartay hase ahaatee ma arko inay meesha imaan doonaan ama Arsenal ba ay boos dooraan oo number 4 ay soo galaan season kan hase ahaatee ani ila ma aha oo maleyn maayo marka waxaan leeyahay Manchester United iyadaba halka ayaan kaga tagayaa sida ay dadka predict gareynayaan waa sidaad u jeedaan ba dadka waxay predict gareynayaan in Manchester City ay
ay iyada number 1 noqon doonto, Liverpool ay ku xijinayaan, Tottenham ay halka dhigeen, Chelsea ay number 4 ay dhigeen. Sida ay dadka ay predict gareynayaan oddskana sida ayuu yahay, laakiin qof walba reasonkiisa iyo different idea ay ka leeyihiin, dadka isku aragti maaha, qof walba si ayuu u arkaa. Marka taana halka ayaan kaga gudbinaa. Midda saddexaad ayaa waxay tahay yaa qaadi doono Premier League 2022-2023 seasonkan. Waa tani way adag tahay xoogaa, waa ogtihiin Liverpool waa adag tahay tripkan oo Premier League waxaan isleeyahay tripkan ayada ugu adag. Manchester City sidoo kale Premier League waxay u noqotay shay caado oo iskaga aysan ka walwalinba, walwalkooda ugu weyn waa Premier League, waa Champions League. Markii aan fiirino labada team, waa ogtahay Premier League horta inaad qaado waxay ku xiran tahay inaad difaacaaga iyo dhexdaada khadka dhexe iyo frontigaadaba inay dad halaqe ay ku taagan yihiin si aad u tartanto oo u noqoto Premier Leaguegaas oo dadka ay u codayaanba inuu yahay Premier League. Iyo dadka badi markii la weydiiyay Premier League iyo Champions League in lagu guuleysto kee adag, inkastoo video aan kasoo sameyn doono, ay leeyihiin dadka badi Premier League ayaa adag, waayo 38 games baa laga rabaa inaad aado, different teams baad la dheelaysaa, geemkuna waa fara badan yihiin, kulligoodna waa Premier League dhexdeeda oo tiimka kulli way kugu wada dhigayaan. Marka changeska ay sameysay Liverpool iyo Manchester City marka aan fiiriyay, waxaa ii soo baxday weli Manchester City inaan laga qaadi karin oo seasonkan ayada ay qaadi doonto mar kale. Ayada ayaan u maleynaya inay qaadi doonto, waayo Haaland ayay keensadeen oo seasonkan goolal badan aad ka rajeynaysaa. Habeen hore ciyaartiisa waa arki jirtay, waa arkayseen City say wax u furfurayso oo breakdownka ay u sameynayso oo imka usoo weerarayso, welina coach fiican ayay haystaan oo dee meesha Guardiola joogo. Marka waxaan leeyahay inay weli Manchester City ay liiga ay qaadi doonto ayaan arkaa. Hase ahaatee dadka sida ay maleynayaanna waa sidan oo ay isleeyihiin sidan ayuu u dhici doonaa Premier League. Sida aniga predict gareeyay iyaguna waa aragtaan oddska iyo sida ay dadka wax u predict gareynayaan. Weli Manchester City ay dadka wataan oo waxay leeyihiin weli ayadaa weyn gareynayso, Liverpool iyo Tottenham iyo Chelsea ayay iyaguna leeyihiin sida ayay weli ay ku wadaan. Marka walbana hadii aragtiisu leeyahay hore idinkugu sii sheegay, khiyaaray wax walba dhici karo Premier League laga yaabo inay Arsenal ay qaado, fahanteen. Marka iyaduna waa halka ayaan kaga tegayaa, ra'yigiina aan wala wadaagi kartaan qaybta commentiga. Arrinta afraad ee u dambeysay ayaa waxay tahay yaa Golden Boot qaadi doona sanadkan. Sida ognahay oo seasonkii 4 season u dambeeyay mar Aubameyang ayuu ahaa, Mohamed Salah iyo Mane ayaa mar isla qaadayay, mar Vardy ayaa qaadayay, marna waxaa qaadayay Harry Kane. Tripkan markii aan fiirino strikeyaasha horta aan leeyahay ayaga ugu badbadan oo way qaadi doonaan waa 5 ayaan idin keenayaa oo halkan aan idinku soo bandhigayaa. 5taas ayaana mid ka dooranaya ama 2. Marka 5ta aan wato waxaa weeyaan kow mid waa garab oo waxaan u xisaabinayaa sidii striker oo kale, waayo waxaan oga baranay inuu yahay goal scorerga kooxdiisa, waana Mohamed Salah. Ninka labaad waa ninka cusub ee hadda imaaday ee balaayada waa Haaland. Ninka saddexaad waa Harry Kane. Ninka afraadna waxaa weeyaan waa Gabriel Jesus ka Arsenal hadda u joogo. Nunes iyo waxaa laga yaabaa inaa Jamie Vardy ay weydiinaysaa. Nunes waxaan u maleynayaa seasonkan inuu xiri doono 15 gool 17 gool Premier League inuu ka xiro, laakiin uma maleyn maayo Mohamed Salah oo taagan inuu asaga uu qaadan doono, inuu Golden Boot uu qaadan doono, una top scorerga Liverpool uu noqon doono. Sidoo kale Son isna waxaa isleeyahay Harry Kane maadaama Harry Kane seasonka hadda uu badnaa caawiyaha Son ama kooxda Tottenham, waxaa isleeyahay tripkan asaga ayaa caawin u baahan kuna soo noqon doono top scorerga Tottenham inuu noqdo. Marka aniga ahaanteyda marka waxaan leeyahay 2 nin ayaan u badbadinayaa. Ninka koowaad waa Erling Haaland oo seasonkan aan leeyahay markii la isku dardaro League Cup-ka iyo FA Cup-ka iyo Premier League-ba iyo Champions League inuu xiri doono 40 gool ama 35 gool inuu xiri doono aan u maleynayaa. Geemkiisana goolashiisana ay u badnaan doonaan Premier League oo aan isleeyahay wuxuu ka xiri doonaa 28 26 meelahaas inuu xiri doono aan u maleyn. Ninka labaad waxaa weeyaan waa Mohamed Salah oo isna aan leeyahay asagana aan leeyahay 28 goals oo xiri doonaa tripkan markii la isku dardaro goolashiisa oo 22 ay yihiin Premier League. Marka labadoodana waxaan aad ugu sii maleynayaa marka inuu qaadayo Erling Haaland ayaan leeyahay waa seasonkiisa ugu horeeyay, weli waxa iskama bedelin. Haddii uusan dhaawac u gelin oo caafimaadna uu qabo, waxaan u
umaleynaya ninka inuu Premier League top scorer uu 5 season isku xigta uu ahaan doono. Marka akhyaaray aniga halka ayaan kaga baxaya sida ayaana wax u predict gareeyay una saadaaliyay waana my personal idea. Marka idinkana waxa aad isleedihiin sida ay wax u dhici doonaan commentiga igula wadaaga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.